اللي يراها ورشيق صح مقالة تاريخي وأودنا عدين تعانكوه السلام عليكم صح ونكسن halkan waxaan joognaa magaalo xeebeed oo ku taalo shabeelaha dhexe ee koonfurta Soomaaliya magaaladan waxay muqdisho u jirtaa ilaa 65 kilomitir halka waxaan rabaa inaan idin soo tuso haddaan soo kacnay waa 12 subaxnimo ama waxa waaye 6 subaxnimo hadda meesha aan joogno waa gurigeena lagu sooray shalay waxaan imaanay shalay galabtii waxaan imaanay maqribadii muqdishona waxaan ka soo baxnay 12 duhurnimo wallaahi waa wax cabaaran soo safarnay cabaar dheer oo badan soo safarnay marka hadda magaaladan idin soo tusiyaa ilaa hortiisan taaganahay xagga ciyaal yar ku ciyaariyo oo ciideena soofta ahayd xeebta warshiiq waxa ay ka mid tahay xeebaha ugu quruxda badan ee dalka ورشيخ أساك جوجنا ورشيخ ورشيخ waxay ku taalaa shabeelaha dhexe ee koonfurta Soomaaliya waxay 65 kilomitir u jirtaa magaalada Muqdisho waxaan maanta rabaa videogan ama muuqaalkan idinku soo duubo magaalada Warshiiq inaad ka bogsataan adinku xaafadiina jiifo ha iloobina subscribe dhahdo share comment in asxaabtii aad la wadaagto maasantiin وانكو سلام أدرسيتها مقعاقة في عام عبد الله مع أحمد شعب أنا عبد الحكيم نور علي دحاء أنا عبد الله مع أحمد شعب ما شاء الله مشايت كاش صح وانقرتي waxaad noo go'rantaa deegaanka Warshiiq waa wadan fiican magaaladan صح ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellada Dhexe waa gartay degmada la yiraahdo Warshiiq صح magaalo taariikhi ah oo dhinaca diinta caan ku ah dhinaca diinta caan ku tahay deegaan aad u quruxsan waa marka waxaad iiga warantaa magaalka muxuu ku tiirsan yahay dhaqaale ahaantiisa maxay ku tiirsan tahay kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha beer ma leedahay beeradii leedahay ma hadda beer deegaanka ku dhex taalaa mise waxa waa baadiye jirtaa waxay ku jirtaa 12 kilomitir 12 kilomitir jirtaa kilomitir ay ku jirtaa صح waa beero oo maxaa ka baxa marka maxaa kamid wax ka baxa waxaa ka baxa masjidada waxaa ka baxa digirta صح waxaa ka baxo qudaarta beeyno qudaar walba ka baxda magaalada dhaqantaa markaas waa in loo soo guuro magaalada marka hadii hadda maanta soo guuro dhaami soo dhabeynaysan aad si fiican aad aad ma santahay taariikhdii iyo waqti siisay waan kaaga mahad celinayaa Warshiiq waa magaalo qadiimi ah kuna
wanaagsan dalxiiska waxayna ka mid tahay xeebaha ugu nadiifsan ee dalka. weli waxaan ku jirnaa dalxiiskii Warshiq. magaca magaalada ay leedahay wuxuu iska saaran yahay laba eray oo kala ah war iyo sheekh, waxaana loola jeedaa hadalkii sheekha, iyadoo Soomaalidu uu sheekh u taqaano qofkii barta cilmiga gaar ahaan diinta Islaamka. magaalada waxaa ku yaala masaajid badan oo waqti dheer dhisan. masaajidkan magaciisa waxaa la dhahaa Macalin Axmed Sheekh Cabdiraxmaan, waxa uu dhisan yahay ilaa 1982. masaajidka wax badan dayactir lagu sameeyay, laakiin markii aad aragto waxaad maleysaa inuu masaajidka waqti badan dhisneen. masaajidka marka banaanka laga eego waxa uu eegay mid qurux badan, waqti ma haynin oo aan gudaha ku soo duubo. banaanka masaajidkana wuxuu lahaa geedo aad u qurux badan. waan degdegsanahay masaajidka halaasan ka soo duubo bas waqti badan ma u heli karno inaan asigoo dhameystiran soo duubo gudaha u galno. إيش كنا جنب مخذله عرفت وسيديني كانوا تمشينا وسكو أرجع المكان عرفت أصل التقرير عرفت يوم عواي هنا عبارة وجبنا في أنال لكن وكحما صاحبك والله لولا نسوق لولا بس كباشا لا دينوا كيلومتر كوا دار النمط والله ما ياخذ كيلومتر عصوص عني 6 كيلومتر لحدني 5 كيلومتر واحد هذيك يا ما لحدني 5 كيلومتر أنا ما تغنى marka aan u soo dhownahay adigina ka soo galmada okay dhankaas ka soo galmada soos ma lixdan saddex ka tahay kan waxa la dhahaa Ismaan waxaan isku baranay safarkii Warshiq. Ismaan ka waran safarka soo ahaa maanta wallahi alxamdulillah ilaahay horta safarka noo soo fududeeyay Warshiq magacan uu keenay walaalkay mataanaysay halkaan aan ku kulmay barasho fiican walaaltinimo dalxiis isaga wada joogo ma sha Allah wallahi waa u bagay safar kale oo inaan ku soo laabto laga yaabo ورجينا إن شاء الله ورجينا أنا هذا وذا جرا يعني قلنا وذا جرا صاحبك عبد الغني سوري عبد الغني سوري قال لي أنا زروالك ما كان هو حاسس كبرنا سفر كورشيق عبد الغني وركيسين وما صنتها ورالك نكاري ديلو نلاها marka la barana hadana Warshiq ku baranay safar qurux badan inuu naga mid ahaa safarka ka mid ahaadana aad ugu faraxsanahay ma sha Allah in doono waxa waaye soo dhaw barada adoo aad khani barashakal insha Allah barashadii reewdile asal reewdile 50 كان الروري لك هو 50 insha Allah safarkeena saf boorsooyinkana xirxiranay bisha ka soo bax Warshiq ma boorsooyin soo xiriir dad safar ay camlay hotelkaas aan ka soo baxnay ninkaas waa fataax اسمان والله بالصعداء